السلام عليكم داوديال وصل لابني إن وحنا ربنا إن ورثنا إن عبد الرزاق مركا إن عبد الرزاق هادو ميشان قدبتك بحيي مدشن إن عبد الرزاق سيدو أركتا مدشا مانتي إيو إن دبالدق اللو ديجيو إن برايم مينستر كينا إن سيدي دريمي ساعة waxaan dareemahay inay tahay xaflad si qurux badan loo soo agaasimay muxuu ahaa Toronto waxyaabo badan marar badan baan ka qayb galay xafladahan oo kale waxay ahayd one of the best aan ka qayb galo alxamdulillah dad badan baa isugu yimid oo rag iyo dumar mas'uuliyiin ay ka mid yihiin si qurux badan bayna ku dhacday أنا وان كل جيست هذا وان كل جيستني ده كان لايف ويكاد جيستناين أو هرمركا تي في لايف ولا قاعد دوبي هذا ويكفر سنين مركا وحن ربع إن كويديو إن هذا لا أد وين بعد runtii meesha ka sheegtay oo hormar waliba maadaama anaga hormar TV aan nahay aad iyo aad baan ugu runtii aniga deeqo aad baan uga helay erayada aad runtii dhiirigelinta Soomaalinimada horumarina u baahannahay historiyada taabatay sidee u aragtaa horumarka markay noqoto Soomaali horumarka maanta u baahannahay sidee u aragtaa adiga waxaan u arkaa Soomaaliya maanta waxay gashay marxalad cusub maadaama ka gaadhay maamuladii soo kala dambeeyay saan u tilmaamay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo mudane muxuu ahaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo hadda way soo gaartay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladooda waxaad mooday in qolada ka dambaysa inay wax ku sii darayso oo meeshii ay ugu yimaadeen meel ka fiican ay geynayaan maamulka waxaan rajaynayaa Soomaaliya inay ku soo noqoto Soomaalida aan aqoon jirnay insha Allah dhawaan gaar ahaan dhalinyarada waxaan rajaynaynaa inay taageeraan dawladooda and it's their future hadii la yiraahdo waxaan rabaa kale inaan ku weydiiyo maanta madashaan loo fadhiyo dabaaldegan maanta waxaa loo dhigayaa ra'iisul wasaaraha loo dhigayaa maxaad haddaad toos uu maanta ku fiirsanayo asaga maxaad ku dhihi lahayd maadaama intaanoo qof orartana isku imaadeen yar iyo weyn waay arag hadda gadaasheena ka hadlayo nin oo shiiqa adigoo ah dadka magaalada degan ay Soomaalida bulshada dhan ay runtii ay isku keeno maxaad kula talinayd maadaama asagana uu nin yar yahay oo daadaadan ku qiyaasaya marka maxaad weydiin lahayd maxaad dhihi lahayd maxaad talo aad ku darsan lahayd hadduu toos ku fiirsanayo maanta waxaan kula talin lahaa muxuu ahaa mudane prime minister Xasan Cali Khayre in dawladda uu soo dhisayo ay noqoto dawlad tayo leh sida muxuu ahaa aan ka daaya ka shaqareena inay ahaato mid ku dhisan merit waxa la yiraahdo waa abaal mutaysi waxa saldhig waa performance wax qabadku waxa weeye wax qofka waa in la yaqaan waxa uu soo qabtay iyo wax bila shaqo markuu qofka dooranayo waxa la rabaa qofka shaqada inuu qualification u leeyahay inuu skillkeeda xirfadeeda leeyahay inuu waaynimadeeda leeyahay marka intaas inta la tixgeliyo in la soo xulo dad qualified oo shaqadaas ka soo bixi karo waxaan kaloo sheegaynaa inay ka fogaadaan macna fakarkii ahaa reer hebel baa reer meel wasaaradda hiblaaga iskale laakiin ay noqotaa mid ku salaysan merit iyo wax qabad intaasaan uga baxayo maasha Allah Cabdi Rasaaq jaamac runtii waxaa tahay sidaan u arko qof horumarka aad u jecel sababtoo inta maanta inta ka tiri waa inta runtii Soomaali ka maqan aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa inaad ma aragtay qayb nagala qaadatay horumarka TV daawadayaal waxaan nagala daawan kartaan talaado kaste 7 PM iyo Toronto tashiga Toronto waa mahadsantahay haddana waxaan u laabanaynaa program
waxaan rabaa inaan u yidhaahdo abwaanka abwaanada waa abwaanka aan maansooye markuu doono gabya mahad fayte fadlan u sacbiya mahad fayte السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بنصر يا مدة الصومالية ما تبشر سكوتي. أنا كلا كان من مثلا أنا وحنا لا السلام عليكم لبنتي. كنت معي تاي فرحنا نقاش عن قصة الكلام. وحنا لا يمكن بلا أبو. مركي لا تورتي من أولنا كربات شيء رزقنا خيره. نبغى وحي هذا وهي يعني نوصل دوية نبغى نجرب الصبح. marka
waxaan moodaa isbeddelkii xamar un keliya inuu ka yimid marka waxaan jeclaan lahaa bal meelaha marka marka la isugu yimaadana in dhallinyarada waqti badan la siiyo oo waxaa weeye hadda ka hor sheeko dhacdada waxay ahayd gabar ka tagtay qurbaha waxay ku laabataa liya xamar waxay ag tagtaa liya hotel cooba oo burburay meeshii bay ku weyday oo hotel cooba maxaa ku dhacay wiil yaroo banooni ku ciyaarayay hotelka agtiisa baa wuxuu yidhi naagtaan maxaa ku dhacay oo ila qiimaysaa hotelkan weligoo burbursanaan jiray macnaha asagu wuxuu arkay hotelkoo burbursan asagoo dhisan uusan aqoon marka dhallinyarada waqti hala siiyo tan kale inaynu ku mashquulno waxaanu ahayn ma malaynayo inay wax soo korinayso maanta soomaalidu dadka iyaga mataqaanaa dowlad ahaanna ugu hooseeya dad ahaanna dee annagaaba dadkeenni gaajo u dhimanaya marka magac hore inaanu qaadanno waxaa dhacta inaynu isu sheegno waxa hadda aanu nahay oo aanu meeshaas ka ambaqaanno o iscanaanano ta kale ammaanta waxaa ka fiican dhiirigelinta waxaan rabaa halkan inaan ka soo jeediyo maase yar oon uga hadlayo macnaha xilli hore aan sameeyey waxay ka hadlaysaa soomaalidu inaysan ahayn wixii la oran jiray hoggaanka maansadu hadda maysan ahayn waxaan ka baqaya dadba inay xanaaqi doonaan hadda maansadu ma ahayn way ka horraysay isbeddelka iyo dowladda cusub oo hadda la dhisay xilli horeyna ahayd oo macnaha adigu dhowrka oo laga joogo maansadu marka waxay ka hadlaysaa awoodda ilaahay baa wax qaybiya qofna maanta wax buu haystaa qofna berri buu haystaa wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi maalinka qof baa waxaya awoodaha ilaahay isaan looga dacwoonayn bay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa soomaalidu waxay ahaan jirtay iyo inay soomaalidu wadamada afrika jira caawisay oo maantana dee ay ugu horrayso south africa oo la leeyahay oo la yidhahdo dadka xitaa madaxda u ahi waxay wadan jireen baasaboorro diblomatic baasabor Soomaaliya hadda dad badan Soomaaliya lagu laaya marka waxyaabo bay soo koobaysaa ama marka jecel dad badan oo haray inaan waqti u reebo oo aan waqti badan qaadanin baarlamaanka maasadii bilaabo maasadu waxay ku bilaabaysay eebow ilaah kale ma jiro adiga mooyaane ikhtiyaar adiga ahoon cidina amarku siinayne ehel iyo adigaan lahayn oori iyo wiile abtirsiiyo iyo adigaan lahayn odayga sheegtaay asxaabkaaga adigaa nafruhu ku istareexaa addoonsiga naftayduna aday abid ku faantaa awood badan adaan kuu iriyo amar ku taaglayn arsaaqdaada adigaan allow laga ahaanayn mid adduunyo haystiyo midkii eber ka soo toosay mid iftiinka laga awday oo aragga loo diiday addimada mid loo laabay oon orod hawoonaynin oo inuu adeegsado gacmaha uba itaal waayey anfacada midaan qaadan karin oo matina daayey abuurtaada adigaa nafluhu ka ashtakoonayn afartaas araartayda gabay eray tilmaanteede awoodaha ilaahiya midaan arami reebayne afar kalena amuuraha dalkiiyo urur xaalkiisde eebow ardaalaha u kacay edegta soomaal eebow anfacadaan la helin aaran iyo doog eebow abaaraha ka kacay idil ahaantiis waxaa ayda lagu duugayaa ubixi soomaal gaajo kuwa abaadaa jiro oo la socon waayey afar hooyo haysatay inani ubadka joogtaa eebow ugaas iyo maharin oday wax sheegaa eebow umuladooxa dhacay inanta ooyaysa hooyada ilmada daadisiyo urugaday reebtay agoontaa la laayo waxaan axad la dhaafaynin indheergarada aqoonyahan intay aafadu haleeshay eebow astaamaha la gubay ehe la-aantayda cuqubada ardaagayga taal uunka laga sheegi afrikada madow iyo kuwaan ehelka moodaayey abaalkaba kuwaan u galay way inkirayaane adduunyaduna asxaab nooma gelin idil ahaanteeda imtixaanka nagu dhacay rabbow waa afkalaqaad dadku waa ekoon yahay markii eebo la hor joogo islaamna waynu nahay dhammaan ehlu tawxiida ibtiladu waxay noogu timid waa irshaadni'iye allow tooba dhaha dhammaan ilaahuu aqbalayaaye alla barina sameeyo dad yahow aakhiro xusuusta salaamu calaykum